Soomaaliya waxaa taasi ugu wacan dhulbeereedka hodanka ah ee ku yaala gobolka. Sanadooyin badan magaalada Marka waxa ay ahayd halkii dunida looga dhoofin jiray qudaarta laga soo saaro beeraha ku yaala gobolka. Waxaa halkaasi laga sameeyay dekad aad u weyn oo ay ku soo xiranayeen maraakiib u kala gooshta dunida, waxaana dekadaasi loo baxshay dekadii mooska ayaa xilligaasi waxa uu ahaa waxa ugu badan ee loo dhoofiyo qaaradda Yurub. Dhaqaale badan ayaana ka soo geli jiray Talyaaniga oo waqtigaasi gacanta ku hayay magaalada Marka. Magaalada Marka waa ku dhashay aniga ilaa iyo haddana waa ku noole. Magaalada waxay soo martay marxalo oo kala duwan oo fara badan. Hadda waxaan kaga bilaabaa jawiga nabadeed ay magaalada soo martay. Marka waxay ahayd magaalada ugu qadiimi ah ee taariikhiga ah ee la xusay ahayd. Magaalada ka qayb qaadatay ka xoreynta dagaalkii gumeysiga Talyaaniga gobolka Shabeellaha Hoose dadkii deganaahay ka mid ahaayeen. Waxay ahayd magaalo barwaaqaysan oo aad iyo aad u barwaaqaysan. Habeenkii markii la gaaro magaalada ninkii soo galaayo oo soo galitaanka hore hadduu soo galo waxaas la yaabi jiray magaalada dhanka badda may ahayd mise dhanka biriga. Maxaa dhacay 30 markabood ee isla wada nal ah magaalada fadhi jiray halkii maalin 30 markaba fadhi jiray. nalalkaas shidnaa waxay dadka shaki ku abuuri jirtay magaalada ma biriga ku taalla ma badda ku taalla. kadib lixdamaadkii markii ay Soomaaliya hanatay xorriyaddeedii oo loo aqoonsaday inay tahay waddan madax bannaan, Marka waxa ay weli sii waday doorkii muhiimka ahaa ee wax soo saarka iyo in ay halbowlo u noqoto ganacsiga casriga ah. Waxaana lagu kabay in Marka laga sameeyo warshado noocyo kala duwan leh oo gacan ka geysta wax soo saarka iyo dibad dhoofinta badeecooyinka kala duwan iyo wax soo saarka beeraha ee la casriyeeyay. Marka waxay qabtay 5 warshadood. warshada hilibka, waxay qabtay warshada marmalaatiga gasacay la gasaceeyo, waxay qabtay warshada saliida looska ee hadda anaga dibadda noogu timaado cadeeda la yiraahdo Marka lagu sameyn jiray. waxaan u maleeyahay maalintii shaqaalo magaalada warshadaha kala aagay ku kala yiileen subaxdii waxaa la yeerin jiray wiish oo shaqaalaha loo yeerin jiray. hashi warshadood 300 400 qof ka shaqeyn jirtay. aduu magaalada subaxdii ugu yaraan 2000 3000 qof oo magaalada degan ashaq u aad jirtay. ugu yaraan 400 500 magaalada ka bixi jirtay waxay aad jireen beeraha muuska. xaaladda magaalada Marka ayaa si isbedeshay wixii ka dambeeyay bilowgii 90maadkii markii ay Soomaaliya ka bilowdeen dagaalo sokeeye oo dhiig badan ku daatay, sababayna in ay dhacdo dowladdii dhexe ee uu hogaaminayay militariga. si la mid ah deegaanada kale ee Soomaaliya waxaa gabi ahaanba burburay kaabayaashii dhaqaalaha ee ay lahayd magaalada Marka, waxaana meesha ka baxay wax soo saarkii beeraha. dagaalo xiriir ah ayaa waxa uu dhex maray maleeshiyaad beeleedyo iska soo horjeeda kuwaasi oo u adeegaya danaha beelaha ay ka dhasheen. magaaladii hodanka ahayd ayaa isbedeshay, waxaanay noqotay goob dagaal, burburka iyo meel uu ku daatay dhiig badan. waxaa meesha ka baxay fursooyinkii shaqo ee ay haysteen dadka deegaanka, waxayna dadka deegaanku noqdeen kuwo u nuglaada dhibaatooyinka faraha badan ee ka dhasha dagaalada iyo burburka. waxa ay dhaxleen mushkilado ay ka mid yihiin in ay lumiyaan hanti wixii ay lahaayeen, isla markaasina ay dhaxda u galaan tartan dhinaca awoodda ah oo u dhexeeya maleeshiyada dagaalamayay. waxaa ka mid ahaa dhibaatooyinka in ay jireen dad kalluumaysato ahaa oo lumiyey hanti wixii ay ka dhaxleen awowayaashood iyo aabbayaashood.